si guud ahaan waa ogtiin amarka soo baxay oo ah in la diyaar garoobo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan fadhiyadiis laga diyaar garoobo degmadan waxay ku suntan tahay ama diiwaankeedu uu yahay goob cadawga argagixisada ah lagu jibiyo iyo goob ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu markasta ku guuleysto. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga taliyaha taakuleenta taliyaha qaybta koowaad ee Kumaandoosta Gorgor dhammaan saraakiisha iyo askarta qiimaha iyo qaayaha badan leh wax wanaagsan mar kale maanta waa ku faraxsanahay dabcan inaan halkaan idinku nimaadno annagoo wasiirkiina idin wadno Janaal Garbe waa taqaanin taliyaha taakuleenta cusub waaye iyo wasiirkeena iyo wasaaradda gaashaandhigga saakay wada socnaa waxaan idinku soconay dabcan inaan xaaladihiina iyo difaaca iyo ciidanka axwaashooda aan soo kormeerno sidoo kale si lamid inaan soo kormeerno diyaar garowga iyo hab diyaarsanaantiina marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo dadaalka iyo kartida aad muujiseen waqtiga aad joogtaan degmada Ceeldheer waa ku faraxsanahay dabcan inaan imaadno ayadoo la idinka amaal sheeganayo shacab weynaha ku nool degmadana ay leeyihiin ciidankan ciidan aan ahayn in loo keenin waa idinkaga mahad celinaynaa dabcan sida wanaagsan ee shacabka ula dhaqanteen waa idinkaga mahad celinaynaa kalsoonida badan ee shacabka geliseen waa idinkaga mahad celinaynaa dabcan sharafta u soo hoysaan markasto sida caadada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed labada urur ee meesha beeska u ah iyo danab oo ayada laftirkeeda waayadan meesha joogtay oo xoojin ku ahayd waa ogtiin dabcan waayadan waxa socda diyaar garow nimanka argagixisada ahaa waxay ku jiraan waqtiyadooda ugu dambeeyay waxa la rabaa qof waliba in niyadiisa u diyaariyo niyad ahaan iyo qalab ahaan waa ogtiin amarka soo baxay oo ah in la diyaar garoobo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan fadhiyadiis laga diyaar garoobo waxaan rabaa intaas ka sokow inaan idinku dhiirigeliyo shaqada weyn ee qiimaha leh ee u haysaan ummadda Soomaaliyeed kaalintiina difaaca dalka dadka iyo diinta inaan idinku baraarujiyo nimanka argagixisada ee ummadda ragaadiyay ee degmadan dhowr jeer isku dayay inay dadkeeda dhibaateeyaan ama shacabkeeda ay dhibaateeyaan ee qayb idin ka mid ah iyo saaxiibadiin kale oo degmada laga bedelay ay dadaal badan ku bixiyeen sidii shacabka Soomaaliyeed ee degmadan qadiimiga ah ee taariikhiga ah degan in laga hor istaago dhagartii uu cadawga la maagana waa ogtiin inta jeer isku soo dayeen Soomaan waana ku guul dareysteen degmadan waxay ku suntan tahay ama diiwaankeedu uu yahay goob cadawga argagixisada ah lagu jibiyo iyo goob ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu markasta ku guuleysto hadday mar kale isku soo dayaan intii oo kala ku dhacaysa Ilaahay insha Allah waxa laga yaabaa degmadan hadday nabad tahay deegaano kale oo aanan degmadan u dheereenin marmarka qaar inay dadku dhibaateeyaan waxaan u dhaaranay ee badbaadada shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan in ag mas'uuliyadeedka ururada halkan degan ay markasto ku dhiiranaadaan sidii shacabka Soomaaliyeed ay uga hor istaagi lahayn nimankan argagixisada waan idinkaga mahad celinayaa dabcan dadaalkiina in 30 kilomitir 40 kilomitir 50 kilomitir in inta tagtaan cadow ku soo dhibaataysan ka soo noqotaan ta keentay in shacabku idinku kalsoonaadana taas waa waxaan rabaa inaan idinku sii baraarujiyo shaqada meesheeda ka wadaan intuu diyaar garowga socdo waan isku soo noqon doonaa haduu Ilaahay idmo hawlaha iyo shaqooyinka iyo axwaasha jirtana saraakiishina hoos isku wareysan doonaa mar kale waa idin mahad celinaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dabcan maanta inaan soo hor istaago Allah idin sharfo Allah idin guuleeyo Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo xoogga dalka Soomaaliyeed ha guuleysto adinkana guuleysto. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.